Bismillahirrahmanirrahim. Waxaan kusoo dhawaada qaybteeni saddexaad ee TK Inter. Qaybtan waxaan ku qaadan doonaa widgets-ka qaybtii ugu horeysay. Widgets waxa waaye controls-ka la isticmaalo sida button-ka, entry-ga ama text box-ka, menu-ga iyo radio button, checkbox, waxaas oo dhan widgets la isku dhaaf marka inta la joogo. Controls-kaas marka midka noogu horeeya aan qaadan doono waxa waaye button-ka marka aad inaad isticmaashid waxaad sameynaysaa waxaa abuuranaysaa object maadaama uu button-ka yahay class waxaa ka abuuranaysaa object. Hadda tusaale kale taani waxaan leeyahay button waxaa kale yahay class inuu yahay waxa ku muujinayso capital-ka xarafka ugu horeeya capital ah si aan u access gareeyo marka waa inaan sameeyaa waxaa jirto inaan dhaho meeshaan aan ku bedelo from ayaan ku bedelay kadibna waxaan leeyahay from TK Inter waxaa iga soo import gareysaa wax walba ku jiro markaas button-kana raise uma baahno wax walba marka waa inaan dhahaa star all iga soo import gareeya marka inta looma baahan doono TK Inter way ka bixi doontaa that's all. Markii aan isticmaalay kadib waxaan u baahanahay button-ka hadda b-dii aan qoro capital-ka ahayd hor ka soo baxaysa arkaysid kadib waxaan leeyahay button-ka muxuu qaataa marka button-ka wuxuu qaataa shaashada la dhigi lahaa waa soo sameynaa waa winkaas ama window-ga aan ka soo gaabinay waa parameter-ka ugu horeeya markuu qaato kadib wuxuu kaloo qaadanayaa text wax la dhaho wixii lagu dhex qori lahaa ama qoraalka lagu dhex qori lahaa marka text adayid wuxuu la mid yahay text-ga waxaan leenahay waxaan la mid dhigaynaa click me badan iska dhaha click me marka dhaho waxaa inoogu xiga parameter badan oo xoogaa qaataa laakiin anaga intaan kusoo gabino horta marka hore aragno parameterada kale waa isla arkaynaa laakiin kan aan aragno haddii aan saan dhaha marka ma lagu soo qori doono ama button wax la ma arki doono button wax la hadda ma jeedin anaga si marka button-ka loo arko waxaa u baahan tahay in la soo saaro ama la arko inaad ka shaqeysid sidee marka lagu soo bandhigaa button-kan waxaa lagu soo bandhigayaa noocyo badan jiro waxaa la isticmaalaa place wax la lahaayo oo la fiirinayo height iyo width-ka meesha la dhigi lahaa markii la fiiriyo shaashada waxaa kaloo jiro waxa la dhaho grid waxaa hadda laakiin ugu fudud aan sameynaynaa method la dhahay back oo ah dhig oo meeshaas la dhigayaa meesha la dhigayna isla arkayna waxaan leenahay button-ka variable-ka ama object-aan ka sameysanay back marka back waxay qaadataa parameters laakiin hadda wax parameter ma siin doonaa faraha aan ka qaadan doonaa marka aran gareyna marka meesha la dhiga aragna hal dhigaysa ujeedid hadda meeshaas la dhiga marka taabto dareemay colorkiisa waa bedeli karnaa button-ka waxaan dhihi karnaa bg waxaa ku la mid tahay waxaan leenahay adiga green ama bedelina amase white iska dhan bg wuxuu ku la mid yahay white si cadaankiisa loo arko soo ujeeda hadda sida hore uu ka cad yahay oo gadaalka background-ka yahay isku mid ma aha next waxaan sameynaynaa button-ka waxaan center-ka inaan dhigno isku daynaa center-ka markaan rabno inaan dhigno waxaan sameynaynaa waxaan isticmaalaynaa method la place marka isticmaalno kadib waxaan u dhiibaynaa x iyo y marka waxaan ka tusaale qaadanaynaa dhererkiisa x waxaa waaye width-ka marka la fiiriyo marka waxaan sameynaynaa width-keena meeqa waaye width-keena waxaa waaye 800 kala bar center-ka maadaama inaan geyno 400 aan ka dhigaynaa y oo dhererka ahna waxaan ka dhigaynaa 500 maadaama tahay 250 okay aran gareyn center-ka la rabo inuu dhigo saa u jeedid xoogaa uu sikiyey anaga cabirka xoogaa inuu qaldan yahay umaleynaa aan fiirino waxaan qaladnay anaga la rabo inaan isla ekeysiino markii hore meeshaan 500 aan ka dhignaa iyadana 500 marka 500 ka dhigno intana aan ka dhigno 250 kaas inuu shaqeynayo aan rajeynaa goli waa lagu jiraa la tahay laakiin dhib malahan waxaan ka soconaynaa inta waxaan ka dhigaynaa intana ka dhigaynaa 100
intana 100. next waxaa inoo ah buttonkan markii la taabto shaqo in la qabto. buttonkan markii la taabto sidee shaqo loo qabanaa? waxaa jiro special parameter uu qaato, special parameter yaan dhihin parameters uu qaato. parameterska markaa u dhiibayo waxaa waaye parameter la dhahayo command. command waxa kula mid yahay saan leedahay. commandka marka saa u qoray double m ayaa laga rabaa. okay, double m markaa qoray wuxuu kula mid yahay function. functionkaas marka waxaan sameynaynaa oo soo abuureynaa marka hore si aad u taqaano. functionkaas waxay noo la mid noqonaysaa waxaan sameynaa function caadi iska sameynaynaa. waxaan leenahay function hello oo kaleeto, hello and then functionkaas ay qabanaysaa marka loo waco print clicked waa la taabtay buttonkan, button clicked iska qaano button clicked. okay, meesha maxaa ka maqan functionka marka u yeerayso marka sidii markii function callka ahayd ma raacsiinaysid parenthesiskaas ama bracketyada waa ka reebaysaa. okay, hadda uu cano oo aan u yeerno ma loo yeerayo, laakiin waxaa la sameynaya markii buttonka la taabto ayaa loo wici doonaa functionka. mar walba buttonka la taabto shaqada waa la qaban doonaa. meeshuu yaalaa biqancin buttonka hadda waa ujeedaa. markaa si fiican u fiirisid buttonkaas markaa taabto si fiican fiiri, hoos fiiri commandka ama command lineka. waa taabtay button clicked waa ujeedaa, waa taabtay haddana maanta shaqadaas waa la qaban doonaa. buttonkaas markaa taabtay meeqa mar hadda taabtay abanta shaqadaas waa garanay. waxaan rabnaa hadda marka inaan soo bandhigno taabashadiisa widget kale inaan soo bandhigno ama message box. sidee usoo bandhigaynaa marka widgetkaas oo lagu soo bandhigo macnaha warning iyo waxaas iyo digniinta iyo errorka markuu dhaco kaleeto ayaan soo import garaynaa. waxaan leenahay from tk enter import message box waa module sababta usoo import garaysaa darteed. marka maadaama ay module tahay waxaan uga baahanahay iyadoo u baahan method la show info ayaa ugu baahnay. methodka la show info marka dood dhaho ma soo bixi doono meeshaas wuxuu soo bixi doonaa markii aan message boxka inta uga yeero. okay, sidee u yeeraa marka message boxka waxaa ka sameysanaa si laftirkiisa variable aan ka sameysanaa. waxaan leeyahay msg oo message aan soo gaabiyey kadib waxaan leeyahay message box markaan dhaho bot show info waxaa la jiro oo laba parameter qaadato. waa function show warning waa jirtaa, show error waa jirtaa, waxaas dhan qaataa waa method. marka anaga hadda waxaan qaadanaynaa midaan show info ah. waxaan leenahay kan ugu horeeya waa title, kan ku xigana waa message kala soo bandhigay. marka that's it. titleka waxaan leenahay warning iska dhaxayna digniin. waxaa inoo xigo waxaan soo bandhigaya waxaan leenahay English aan qorayna. waxaan leenahay messageka you clicked the button. okay, aan ran garayna marka meesha laga soo saarayay command lineka wax looga soo qorayo oo leeyahay button clicked. hadda laakiin waxaa la soo saari doonaa message box oo ah si laftirkiisa widget gaar ah. aan taabano marka first digniina noo sheegay waxaan leeyahay warning you clicked the buttonka taabataan. okay, hadda dhayd waa bas intaas waxay noo qaybteeni saddexaad ee tk enter.